بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبائي في الله، halkan waxaan ka bilaabi doonaa ayadoon ajiibayno codsi aad u badan oo ka yimid walaalaha ama walaalo badan oo muslimiin ah iyo gabdho badan oo muslimaad ah, khaasatan walaalaha ku nool qurbaha iyo reer galbeedka cumuuman, gaar ahaan hooyooyinka doonaya ilmahooda inay xifdisiiyaan ama ay fahamsiiyaan ilmahooda axaadiis gaagaaban oo macno ballaadhan leh oo nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam oo saxiix ah, gaar ahaan macallimiin badan oo isu xil saartay ilmaha waddamadan ku nool inay wuxuun ka badbaadiyaan. walaalahaas codsiyo badan oo iga soo gaadhay ayaa waxaan jeclaystay risaalo aan hadda ka horay u duubay qayb ka mid ah ama 100 xadiis oo la yidhaahdo 100 xadiisin lilxifd, oon u bixiyey baro 100 xadiis. baro 100 xadiis af soomaali ahaan, ayadoon hadda ka hor 200 iyo 100 aanu duubnay, ayaa 100kii ugu horreeyey ay walaalo badan naga codsadeen bal inaan si kooban inaan ugu soo duubno si ay oga faa'iidaystaan una faa'iideeyaan. haddaba 100kan xadiisa ugu horreeya waxaan jeclahay inaan u aqriyo. mar hore 5 baan u aqriyey, hadda waxaan isku dayayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaan dariiqa qaado. mararka qaarkood waan ka yar badin karaa in sha allahu tacaala haddii aan la yidhaahdo. si kooban baan u aqrin doonaa. 50ka ugu horreeya abu hurayre ayaa warinaya radia allahu tacaala canhu, waana axaadiis saxiixa ah. can abi hurayrata waa xadiidka koobaade. can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila arraxmaani subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim. xadiidkan bukhaari iyo muslim baa warinaya, waa muttafaqun calayh, min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah. wuxuu leeyahay nabigeennu sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, kalimataani, 2 kelimo ama 2 eray, khafiifataani cala allisaani, ku fudud carabka marka carabka uu dhahayo, odhaahda carabka ku fudud, carabku markuu ku dhawaaqayo ku fudud xagga dhawaqa. thaqiilataani fi lmiisaan, maalinta qiyaama markii la tagana miisaanka ku culus, xasanaadka iyo ajirka labadaa kelima laga helayo
marka miisaanka la saaro ajirka ayagaa ka imaanaya marka miisaan la saaro ku culus xabiibataani ila araxmaan allaha raxmaanka ee naxariista caamka alana iyo midda khaaska aaba labaduba agtiisana loogu kalgacayl badan yahay idan fiiri addoonkii ilaahayow addoontii ilaahayey nabigeenna xabiibkeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu leeyahay laba kelimo oo orah ahaan marka lagu dhawaaqayo carabka ku fudud miisaan ahaan maalinta qiyaamo xasanaadka iyo ajirka ka imaanayana ku culus miisaanka allaha raxmaanka ana agtiisa looga kalgacayl badan yahay oo laga jecel yahay labadaa kelima ma taqaanaan waa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim labadaa kelimo intee in leeg bay kugu qaadanaysaa bal intaad saacadda fiiriso ama mobaylka aad daqiiqad ku buuxiso waxaad dhadaa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim meeqa jeer baad ku qowli kartaa ama aad dhihi kartaa hase ahaatee ilaahay agtiisa meeqa xasanaad ama meeqa ajir ayaad dhigatay haddaba addoonkii ilaahayow addoontii ilaahayay naftaydaan la hadlayaa yaanan dayicin ajirka intaa dhan oo carruurteenna aanu barro oo haweenkeenna aanu barno oo aan raggeenna barro macallimiintuna si khaas ah ha u bareen ilmaha biidnillaahi tabaaraka wa tacaala amaa labadaa kelima macnahoodu subxaana allah ilaahay ceeb ma leh nacam ilaahay ceeb ma leh tabaaraka wa tacaala ilaahay wax ma dhalin oo ilaahay lama dhalin ilaahay ceeb ma leh ilaahay ma seexdo ilaahay cunto ma cuno allah ceeb ma leh meel uu ka soo bilowday ma leh meel uu ku dhammaadana ma lahan tabaaraka jalla wacala idan ilaahay ceeb ma leh wa bixamdihi allah tabaaraka wa tacaala waa mahadsan yahay maca xamdihi ayadoo mahaddiisana lala qabo alxamdu lilaahi calaa kulli xaal xaalad walbaba ilaahay waa mahadsan yahay tabaaraka wa tacaala xaalad walba ilaahay mahad buu leeyahay tabaaraka wa tacaala subxaana allahi wa bixamdih nicmaduu isiiyey ilaahay baan ugu mahadinayaa alla waa mahadsan yahay annagana waanu ku mahadinaynaa tabaaraka wa tacaala caafimaadkii mahad aan la soo koobi karin buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala subxaana allahi mar labaad alla ceeb ma leh allihii alcadiim allihii weynanka badnaa tabaaraka wa tacaala idan xadiidka koobaad waa intaa xadiidka waa kooban yahay macno ballaadhan buuse leeyahay laakiin marka hore waxaan idhi si kooban baan u duubaynaa xadiidka labaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam faqaala ya rasuula allah man axaqu الnaasi bixusni صaxaabatii qaala ummuk qaala ثuma man qaala ummuk qaala ثuma man qaala ummuk qaala ثuma man qaala ثuma abuuka xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey muttafaqu calayh min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh xadiidka wuxuu leeyahay abu hurayra jaaءa rajulu ilىa rasuuli اllah calayhi الsalaatu wassalaam saxaabi saxaabada ka mida baa nebiga u yimid rajul markii saxaabada laga hadlayo jahaalatu الصaxaabiyi laa tadur saxaabiga inaan la garanaynin xadiidka waxba ooma keenayso oo dhib ah xadiidka waxba ooma keenayo jaaءa rajulu waa saxaabi saxaabi waxaa la yidhaahdaa cidda nabiga la kulantay sala allahu calayhi wasalam haddana rumaysay calayhi salaatu wassalaam islaamnimo iyo iimaanna ku dhintay saxaabiga marka lasoo koobo tacriifka ugu kooban waa midkaa wey jaaءa rajulu ilىa rasuuli اllah sala allahu calayhi wasalam faqaala ya rasuula allah man axaqu الnaas dadka yaa igu
dadka yaa iigu xaqnimo badan bixusni saxaabatii inaan la saaxiibo oon ixsaan u sameeyo, inaan dadka qofkee ii mudan ama iigu mudan inaan ixsaan u sameeyo oon samafal u sameeyo oo aan asaga la saaxiibo oo aan mar walba la jiro ka warqabo. qaala ummuka hooyadaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam. saxaabigii weli wuxuu doonayaa ziyaado, waayo saxaabadu waxa jannada lagu galay aad u jeclaayeen. qaala uma man, yaa iigu xiga? qaala ummuk, waa mar labaad. qaala uma man, qaala ummuk, waa mar saddexaad. qaala uma man, yaa ku xiga? qaala uma abuuka, aabbaha ayaa ku xiga. ara'aytu maaragteen xadiidkani xuquuqda uu siinayo hooyada. nacam, hooyadu waa midda ku wallacday. nacam, hooyadu waa midda ku uuraysatay. nacam, hooyadu waa midda ku foolatay. nacam, hooyadu waa midda ku nuujisay. nacam, waa midda kuu soo jeeday. waa midda intaasoo ku soo barbaarisoo ku soo korisay. aabbuhuna dab yar ma shidayo. xuquuqda labaad buu leeyahay aabbuhu. sidaa daraaddeed xadiidkani waa inaan ilmaheenna si wanaagsan ugu sharaxnaa iyo nafteenna intaba. ilaahayna wuxuu leeyahy waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana. idan xuquuqda labaad bacda cibaadat illaah waxaa weeyaan xaqa labaad. ilaahay wuxuu la xiriirsiiyey xaqiisa xaqa waalidka. hal meel lama aha qur'aanka akthar min aaya ayuu alla ku sheegay, nabiguna sidoo kale sala allahu calayh wasalam. idan xuquuqda hooyadu aad bay u weyn tahay. aljannatu taxta aqdaami alummahaat, jannadu waxay ku jirtaa hooyada labadeeda lugood hoostooda ayay ku jirtaa. idan xadiidkan waa xadiid cadiim ah oo la doonayo ilmaheenna inaan barro, weliba khaasatan meelahan markii la joogo. ilmaha meelahan waxay ka bartaan cuquuqul waalideyn bay ka bartaan, caaqnibay ka bartaan. inaan xoogga u saarra ayaa la doonaya. xadiidka saddexaad, can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal iyaakum wadanna faina adanna akdabu alxadiid. muttafaqun calayh. xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh. xadiidkan wuxuu leeyahay, abu hurayra wuxuu leeyahay, nabiga sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu yidhi iyaakum wadanna, war iska ilaaliya malaha xun, iska ilaaliya. waxay ila tahay iska ilaali inaad noloshaada oo dhan ku dhisto oo wax walba aad dhahdo waxaan u malaynayaa. maxaa yeelay ilahi wuxuu yidhi ina bacda adanni ismun, malaha qaarkii waa dembi. ina adanna laa yuqnii min alxaqi shay'a, maluhu xaqa waxba kama taro, waxba kama aha. idan malaha badan iska ilaali. muxuu gaadhsiin karaa malaha xun? faina adanna akdabu alxadiid. rasuulu lhudaa calayhi asalaatu wasalaam wuxuu leeyahay lianna malaha xuni waa akdabu alxadiid, war la sheega midka ugu been badan wey. akdabu alxadiid, war la sheega midka ugu been badani waa malaha. idan malaha aadan hubin iska ilaali. shayga aad hubto waa sheegi kartaa, shayga 70% waad malayn kartaa oo waxaa weeyaan yaqiin buu u dhowaan karaa. laakiin malaha aan xaqiiqo ku dhisnayn inaad caado ka dhigato waxaasaan u malaynayaa, natiijaday ku gaadhsiinayso waa been. beentana nabigeenna sala allahu calayh wasalam waad ogtihiin inuu yidhi iyaakum waalkadib, iska ilaaliya beenta. fa ina alkadiba yahdii ila alfujuur, beentu waxay ku gaadhsiinaysaa taaca alla ka bixid, inaad taacada alla ka baxdo. wa ina alfujuura yahdii ila annaar, faajirnimaduna qofka naar bay gaadhsiin kartaa. iska ilaali marka. waxaa weeye nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa wuxuu ku leeyahay qofku caaduu ka dhiganayaa been ilaa ilaahay agtiisa beenaalo looga qoro. taasaa ceeb kugu filan, taasaa qofka muslimkaa ceeb ugu filan.
nabiga waxaa la yidhi qofka muslim mu'minkaa been ma sheegi karaa maya buu yidhi saa daraaddeed beenta waa khatarteeday leedahay weliba waayahan dambe beenta aad baa loo caadaystay beenta aad baa loo caadaystay ilmaheenna waa inaan ka ilaalinaa beenta xataa hooyooyinka qayb ka mida waxay gaadhaan intay hooyo kale albaabka ku soo garaacdo inay ku dhahdo waxaad ku dhahdaa hooyaday ma joogto beenta noocan ee bareerka ah ee ilmaheenna la baraya khatarteeda ayay leedahay nas'alu allaha alcafwa waalcaafiya iyaakum waadhanna fa ina adhanna akdabu alxadiid iska ilaali beenta malaha iska ilaali waxay ila tahayda iska ilaali maxaa yeelay dhannigu iyo maluhuna waa akdabu alxadiid war la sheega midka ugu been badan weeye marka akhlaaqda xun baa dadka laga reebayaa malaha xun baa dadka laga reebayaa أما حديث كأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب متفق عليه حديث البخاري مسلم من حديث أبي هريرة وحليه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد أدونك قفك رجل يدوم البدك دورها النقض لا يتكلم بالكلمة أراهبوكوها الليا أرايبوكوها الليا أفكيس وحباك الصباحية ما يتبين فيها أوصر هبصنين ما حق با ما باطل با دم بما لقاقا قريا مسا أجر سحميا مسا وخطأ ما يتبين فيها أو مكلا عضاء موسى عضيسنين كلمة مسحبا مسا وخطأ يزل بها في النار مركاسا وحو كلمة سي وحي قارسين يسا يعني وحو كسم بريحانيا قفك مركو مال دوباء او لقت صارو او اي لقت دوبادو لا اردو ايا ليلة هذا زل الرجل قفك واو وعضي اما والليحضي اما واسم بريحضي اما السبيق با لا تكتي يزل بها وحي قارسينيساه أما أي ألحينيساه أما كسم بالرحانيا بها بسببها كلمة السبب تذا في النار نعوذ بالله إلى انتهى أبعد ما بين المشرق والمغرب نار وحي كتوريسا كفو أما مسافة هان مركا لا إيجيو قرحدو ماشي كسو بحضو إيا ماشي أي أرعضو وليبا وح كفو لما دين قرح كصوبح إيا قرح ودا انت ودا حيسا وح لئك أي نار تكتوريسا لما دين وليبا وح كسيفوك أيا ليل أرأيت ما أركت أيها العبد الفقير عرب كينا ما أركتين عرب كينا سوس أو كنترولين ما أركتين عرب كينا سيدان أو سمانتا وحيو دون أوها الله ما أركتين ميقك كلمون أيا أفكارا كصوبح هذا تأني موج كلمة انت هذا كو هذين وإن هذا مصحبة مسوى خطأ محقبة مسوى باطل حتى هذا يكون عداته إنا يسحتها هاي وإن هذا ماشا المكوها بونتا هاي وقت المكوها بونتا هاي مفسدة كذا لنيسا إيا مصلحة كذا لنيسا يا وين باهيما الله قبا هذا إنان كلمة كل واقع لو هذا سوي حساب تمي لهين دعنا يران لها علماء وحيدهان من كثر كلامه قفك هذا الكيس أوبته كثر سقطه دعنا عيسية دول كيس أيابت قفك دعنا عيسية دول كيس بتانا ذنوب تيس أيابت نعوذ بالله إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب إذن عرب كينا إلالينه ومهيم عرب كينا إلالينه أما حديث كدرسي أنه أوضا بيه شنت حديث أبوه الرئيسة حديث كشنات عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. متفق عليه. والله وحديث عظيم وحديث قفك قلبي جيسو وإيمان كتشيرو قفك نفتي سيقان وحديث إيمان كيسو كزيادة. بل حديث كأن معناه حديث بخاري مسلم باورينيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، إلهي وام الصيرة، وغيرة الله، إلهي مسير كيسنا وامحي، أن يأتي المؤمن قفك مؤمن كائن الله ماذا ما حرم الله وحو الله كريم. سبحانك يا رب. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. الله وما الصيرة مصير كإلهنا معناه ذو أصدق فسره وعيري أن يأتي المؤمن إنه أدون كل ما حرم الله وحق الله كريم تبارك وتعالى. إذن حديثك وحنوت المامية وحق الله نجا حرمي حق قولك هذلك، حق فعلك، حق اعتقادك يا معتقدك، وحو الله نجا ريبي أردن هدي أن الله إيمانه إلهي إنه كم مصير يا تبارك جل وعلا. مصيرك إلهي سيدو يهي من نقام سيداس أيانو كدينينا، لكن وحو الله كحرمي تبارك جل وعلا إن أتكفقاته. وحديثك وحا كو إرشادين أيوه، أما حديثك وحا نوت المام أيوه. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. إلهي وحب ذنب نجا حرمي وحو الله نجا حرمي وحو يري تلك حدود الله، وروكا حدود إلهي فلا تعتدوها، ورهيها قدبنا فلا تقربوها، ورهيها أدواننا. أعظم الذنوب عند الله ذنوب إلهي أكتيس اللقا قالوا ذنوب أقوى وين ما تقانان، وإنه أدون كل ما دوحوا الله كحرمي تبارك وتعالى. أو أي كوكتهي الشرك بالله، إلهي إن وحكى لا عابده تبارك وتعالى. إيا السبع الموبقات، إيا تضرد الذنوب أقوى وين، وإذا كبدا يهين كوا واوين. لكن انتهى الحديث لغو الشيغي أيان كهذا الله. أحبائي في الله، أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم برشدودا إيا أقرنتودا سيبردودا إيا سيفافينتودا والله وقيمة وين أي قفك مؤمنك أو فرددا. شعيلك نبي محمد بين تلماميسا صلى الله عليه وسلم أن شعلان النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحد شعيلك كقيب قادنا يا إنان برنه أحاديثي الصحيحة الصيك السبناتي صلى الله عليه وسلم قريه إن أنكو أقرنه عرورتنا آنو برو هبين إيا مالنا آنو كدقنا وردي إيا وحن إلهي أقود وانا تبارك وتعالى. الله وحن كبر إياه إنو نقو أنفعه درسيا كوبا شنت حديثة والله صحيحة خفك حفظية قلبي سوء نور إيا افتين وقال انت أنو كاكل مينو درسيا كان كوحية وحاندين كذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.